golayaashaada golahaaga wasiirada dadka kale marti sharafka ah ay dhammaan dadweynaha halkan isugu yimid aad iyo aad baan idiin salaamayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane iyo mudawooyin waxaad la socotaan halkan waxaan noo nimi baahi iyo aragti aanu u qabnay inaannu ka qayb gallo xafladdan iyada ah waxaannu ahayn aniga iyo ergo kale oo leh wasiiro xildhibaano iyo garaado dhammaantayana waxaanu u nimi inaannu idinkala qayb gallo xafladdan iyada ah ee taariikhiga ah oo aannu runtii wadnay malaayiin hambalyo oo ka yimi hadday xukuumaddayada tahay uu madaxda u yahay madaxweyne cabdiweli haddii ay tahay shacabka reer puntland ee ku kala nool dalka gudihiisa iyo dibaddiisa meel kastoo ay joogaanba waxay idin leeyihiin jubbaland hambalyo 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 waxaan kaloo sheegayaa waad la socotaan dhammaantiin in meesha la puntland ay doorashooyin ka dhaceen doorashooyinkaas oo runtii ahaa doorashooyin taariikhi ah waxaad moodaa in ay isku soo beegmeen codsigan adduun weynihii oo dhan idinka codsanayo iyo tii ka dhacday meesha la yidhaahdo garowe oo magaalo madaxda puntland in la rabo in ay noqoto electionkaasi election run ahaantii taariikhiya buu ahaa lama filaynin oo markaad qoraallada iyo hadallada iyo dadka aad eegto marnaba cid filaysay in sidaa wax uga dhacaan puntland ma aanay jirin laakiin alxamdulilaahi rabbilcaalamiin iyadoo uu madax noogu yahay madaxweynihii hore oo runtii ahaa nin aad iyo aad iyo aad u taageera samaysinka iyo abaabulka iyo nabadgelyada jubbaland inuu madaxna noogu ahaa maanta in si nabadgelyo xilkasnimo sharaf iyo karaama ay ku jirto in codkiina uu dhacay isaguna uu wareejiyey oo ku aqbalay muxuu ahaa doorashadii meesha ka dhacday haddaba iyadoo taasi ay jirto waxaa laydinka rabaa haddaad tihiin jubbaland inaad dimuqraadiyadda noocaasa aadaan inaad ilaalisaan isku xidhka walaaltinimada baahida aad idinka dhexdiinna isu qabtaan jubbaland nabadgelyay idinku filan tahay walaaltinimay idinkaga badan tahay waxay idinkaga badan tahay iskaashi iyo wada hadal bay idinkaga badan tahay waxaan ayaamahan dan maqlayaa xoogaa jira waxyaaba jira oo aan jeclahay inaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka si cad aanu uga wada hadallo sidii beelahan aad mooda hadeerta xoogaa in laysku yar xuuqinayo loo joojin lahaa si walaaltinimo iyo kalgacal uu ku jiro loogu wada noolaan lahaa jubbaland marka walaalayaalow iyadoo aad ogtihiin waqtigu sida uu yar yahay iyadoo aad ogtihiin in maantoo dhan la fadhiyey waxaad moodaa in dadku ay u baahan yihiin in la soo gaabiyo waxaan codsanayaa bal horta marka ugu horraysa iyada oo aanu raacayno haddaan nahay reer puntland dowladdayada iyo shacabkayagu sidii uu idiin taageeri jiray doctor cabdiraxmaan sheekh maxamuud faroole ee uu u taageeri jiray jubbaland waxba iska dhilmaayaan haba yaraatee iyadoo aanu tixraacayno muxuu ahaa constitutionka dowladda federaalka waxaanu ballan idinku qaadaynaa taageeradii uu idin siin jiray marnaba inaanay isdhimin waxaanu kaloo ballan qaadaynaa inaanu walaaltinimadiinna baayac mushtarkiinna nabadgelyadiinna in kasto wax kastoo aanu idinla qaban karno ama aynu wada qabsan karnaba aanu diyaar idinla nahay inaanu wada qabsanno oo aynu isu nimaadno waxaan ku soo koobayaa hadalka jubbaland ha jirto ha waarto soomaali weyn ha noqoto tii midowda aad iyo aad baan idiin salaamayaa waa nabadgelyo